maareeyaha guud ee garoonka diyaaradaha Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ee magaalada Kismaayo Cabdullaahi Aadan Maxamuud Jagadoona ayaa kulan la qaatay dhammaan maamulayaasha shirkadaha diyaaradaha ee ka hawlgala magaalada Kismaayo isagoo warbixino ka dhageystay la xiriira caqabadaha haysta shirkadaha isu imaatikan oo ay goobjoog ka hayeen dhammaan shirkadaha diyaaradaha ee ka hawlgala Kismaayo iyadoo ay qaar ka mid ah wakiilada ka socday shirkadaha ay si kooban uga warbixiyeen arrimaha la xiriira shaqooyinka ay ka qabtaan garoonka iyo caqabadaha ay la kulmaan maanta waxaa sharafnaa anaga oo ah wakiilada diyaaradaha iyo maamulka airportka aan isku nimid airportka Sayid Maxamed Cabdulla Xasan International Airport si aan uga wada hadalno maamulka iyo habka qaabka nidaamka shirkaduhu iyo qaabka ay u shaqeeyaan iyo nidaamkooda shirkaas oo isku nimid si aan uga wada hadalno barnaamijka ka jira garoonka diyaaradda habsomcodkiisa diyaaradaha imaanaya waxaan maanta isku nimid garoonka diyaaradaha xafiiska guud ee lagu shiro in laga arinsado arrimaha diyaaradda annaga iyo maamulka xukuumadda diyaaradda maareeyaha mataqaanaa Jubbaland waxaan laga arinsanayay 4 qodob oo kala ahayd in sidii dadweynaha magaalada degan iyo la soo waafajin lahaa garoonka diyaaradaha iyo diyaaradaha qiimeentooda iyo wanaagooda si loo xalin lahaa baa laga wada shirayay waxaan la isku afgartay in dadweynihii sidii loo qancin lahaa dhanka qiimaha maareeyaha garoonka diyaaradaha Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ee magaalada Kismaayo Cabdullaahi Aadan Maxamuud Jagadoona ayaa maamulka shirkadaha diyaaradaha kula dardaarmay inay si isku mid ah ugu adeegaan shacabka sidoo kalena ay qayb ka noqdaan la shaqeynta maamulka garoonka maanta waxaan kulan ballaaran la qaadanay dhammaan maamulka shirkadaha diyaaradaha ee ka howlgala garoonka diyaaradaha Sayid Maxamed Cabdulle kulankeena wuxuu ku saabsanaa in aan dhageysano dhammaan maamulka shirkadaha kala duwan si aan u ogaano caqabadaha jiro iyo qaabka maartay adeega bulsho ee garoonka iyo shirkadaha shaqadooda sidaan isu waafajin lahayn marka dhowr qodob oo muhiim ah oo aan isleenahay in maartay la hormariyo adeega bulshada ee garoonka dhanka gaadiidka iyo duulimaadka diyaaradahaba muhiim u ah ayaan kulankeena maanta ku soo qaadanay waxaa ugu horeeyay in maartay nidaamka shaqo ee diyaaradaha dhammaan la waafajiyo hanaanka shaqo ee garoonka haddii ay ahaan lahayd dhanka maartay ilaalinta waqtiga rikaabka Maxamed Jawhar Jubbaland TV Kismaayo.